ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا إلى الدنيا كي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حكسوا حديث أي صارين الإمام أحمد يا مسلم يا أربعة أهل السنن من حديث أبي ذر أي النبي صلى الله عليه وسلم سدح الروح maalinta qiyaamada ilaahay lama hadlo, mana fiiriyo il naxariiseed kuma dayo, mana daahiriyo oo uma dambi dhaafo, cadaab xanuujiyana way leeyihiin. waa saddex ruux, waa saddex ku sifoobay sifaad ilaahay necab yahay tabaaraka wa tacaala. waa goodi iyo waciid adag wey. maxaa yeelay rabbigeen tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada addoommadiisa saalixiinta uu jecel yahay buu la hadlaa, hadalkiisana qiimo weyn buu ku fadhiyaa. wuu fiiriyaa, il naxariiseed buu ku fiiriyaa, iyaguna way daawadaan. inay rabbigood fiiriyaan oy daawadaanna nicamka la helo kuwa ugu qaalisan way aakhira yaalla. ilaahay wuu taskiyeeyaa oo wuu daahiriyaa, waa u dembi dhaafaa, waa cafiyaa. janno iyo hoyga naxariistana way leeyihiin. intaaba cidda laga qadiyey waa cid ilaahay tabaaraka wa tacaala dembi weyn ka gashay. waa saddexdaasi waciidka iyo goodiga adag ku soo arooray. wuxuu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam ka koobaad, almusbilu isaara, waa ruuxa hoos guntigiisa maradiisa qaardambaha saaran ee asturaysa hoos u dhiga oo raariciya oo aanqowga ka hoos mariya. ka koobaadi waa kaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala uma naxariisto, mana fiiriyo, lamana hadlo, cadaab xanuun badanna wuu leeyahy. sababtu maxay tahay? allah tabaaraka wa tacaala sharcigiisa waa sharci dhammaystiran, waa sharci loogu talagalay aadamaha noloshiisa qayb kasta inuu maamulo oo shuruuc iyo nidaam u dejiyo. wuxuu kugu maamulayaa labiskaaga, wuxuu kugu maamulayaa cuntadaada, wuxuu maamulayaa nidaam u dejinayaa cabbitaankaaga, shahwadaada, noloshaada oo dhan baa nidaam loo dejinayaa. iska dhaaf wax kale musqusha gudaheeda iyo suuliga gudihiisa ayay kugu maamulaysaa oo shuruuc iyo nidaam lagu dejinayaa. ma aha shareeco iyo diin sida la mooday, qaybo nolosha ka mida intay uun ka hadasha inta kalena faraha ka qaada. ma aha. nolosha mideeda ugu yaryata ugu weyn bay shuruucdiiyo nidaamka diintu uu saamaynayaa. saas daraaddeed labiskaaga iyo qaabkaad u labisanayso iyo dharkaaga iyo qaarkaad u xidhanaysaa nidaam iyo shuruuc buu leeyahay, loo baahan yahay inaad ilaaliso. haddaad ilaalin weydana dembi weyn baad gelaysa. waxaa ka mid ah raggay masaladani khaas ku tahay, dumarku kuma jiraan. labiska ruuxa muslimkee ninka ah waxaa la doonayaa inuu aanqowga ka koreeyo, ama sarwaal qab, ama macawis qab, ama qamiis xidhnow. qaardambahaba waxa astura ayoo dhan baa isaar la yidhaahdaa. nabigeennuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ruuxa mu'minka ah qaardambihiisa marada qarinaysaay meeshay ku eg tahay waa dhudhunka dhexdiisa. dhudhunka iyo aanqowga inta u dhaxaysana dhib male buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh.
laakiin wixii aanqowga ka hooseeya waa naar buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ruuxa samaynayay sabab waxay ugu noqonaysaa inuu naar galo walciyaadu billaah waa arrimaha dadku aad u fududaystaan khatar badanna ka imaan karto maalinta qiyaamada nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh si guud ummadiisa wuxuu ugu jideeyey nin muslimaba haddaad tahay hoos guntigaaga kor u qaado waxaa soo maray maalin maalmaha ka mida ibnu cumar saxaabigii jaliilka ah ibnu cumar wuxuu leeyahay markaan nebiga soo maray maradaydu waa hoosaysay hoos bay u laalaaday aan qowgay ka hoosaysay nebiga arkay sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi cabdullaahiyow marada kor u qaad kor baan u qaaday buuhi ku dar buu yidhi buuhi waan ku daray buuhi meeshii markaa nebigu ii istaajiyey marada ayaa noloshayda intii dambe ku ilaalinayay buuhi raggii meesha joogay qaar ka mida weydiiyo waxay yidhahdeen cabdullaahiyow meesha nebigu kuu gaadhsiiyey ee uu kaaga aamusay xaggay ahayd wuxuu yidhi dhudhunka dhexdiisay ahayd dhudhunka lugta dhexdeeda halkaa markaan gaadhsiiyey buu nebigu sal alla alay wasalam ii daayay halkaasaanan ku ilaalinayay buuhi waa macnuhu tilmaamaya nebigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isratu lmu'min ilaa ansaafi saaqayhi ruuxa mu'minka hoos guntigiisu wuxuu ku egyahay ilaa dhudhunka dhexdiisa walaa junaaxa calayhi maa baynahu wa bayna alkacbayn inta u dhaxaysa dhudhunka dhexdiisa ilaa aanqowgana wax dhiba ma leh oo dembi ka soo gaadhi maayo wamaa asfala min alkacbayni fa fi nnaar buu nebigu sal alla alay wasalam wixii aanqowga ka hoos marase waa naar u fiirsa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hoos u dhigga marada laf ahaanteeda buu nebigu ku tilmaamayba inay tahay makhiila waa kibir buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay maradaada kor baad u qaadan kartaa iyo maxaa keenay inaad hoos u dhigto dhulka ku jiido soo qasad ma ah dan baad ka leedahay laf ahaanteeda kibira buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa xaraga kibir ilaahayna tabaaraka wa tacaala xaraga kibirka noocaasa ma jecla saasuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh cabdilaahi bni cumar u fiirso markuu nebigu leeyahay marada kor u qaado ma dhihin ma kibir baad u samaynaysaa mise siday kaa noqotay bimujarad uu nebigu arkay maradoo hoosaysa war marada kor u qaaduu ku yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaana saxaabadii nabigeenna ahaan jiray ridwaanullaahi calayhim alkhaliifatu araashid cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaa markii isagoo salaada subax ku jiraoo dadka tujinaya ninkii gaalka ahaa ee ciljiga ahaa uu toorrida daray oo caloosha kala jeexay oo khaliifatu rasuulillaahi sal alla alay wasalam dhaawacaya oo muslimiintii isku dhex wareereen oo khaliifkii xaaladiisii uu khatar ku jiro oon la garanayni wuxuu ku dambayn doono oo inta cabbitaan la siiyey ay caloosha ka daadatay oo loo badinayo inuusan noolaan darinoo xaalad dardaan uu ku jiro muslimiintii baa u soo gelaya cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaa qaybqayb koox koox nin baa loogu soo gelaya dadkii u soo gelaya waxaa ka mida nin dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa markuu u soo galay buu u bishaareeyey wuxuu yidhi bishaarayso maxaa yeelay waxaad ka mid tahay raggii nebi maxamed la saaxiibay ardadiisii baad ka mid tahay dadkii ugu horreeyey ee diintan qaatay ee garab istaagay baad ka mid tahay xil baa laguu dhiibay oo muslimiinta muddaad xukumaysay ood cadaalad ku maamulaysay haddana ilaahay noloshaadii shahaaduu kuugu khatimay oo shahiid baa tahay bishaaraysuu ku yidhi cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo ka mid ahaa dadkii jannadaba loogu bishaareeyey iyagoo adduunka korkooda jooga haddana cabsidiisaa badnaan jirtay wuxuu ku yidhi dhagayso waxa aad akhriyayso oo dhan waxaan jeclaan lahaa buuhi in laysla tuuro waxaan sameeyey oo dhan iyo dembigayga inay isu dhacaan oo aan badbaado naar ka badbaado intaa haddaan heli lahaa intaasaa wax weyn ii ahayd buuri waxaad tirinaysooo kaleoo dhan ila dhaaf buuri wiilkii yaraa markuu laabtay oo inuu dhaqaaqo bilaabay ayaa cumar ishiisu waxay ku dhacday marada wiilka oo dhulka taabanaysa
cumar waa sakaraat waana xanuunsanaya hawl intaa ka weyn baa taallo oo muslimiintii iyo maamulkoodii iyo mustaqbalkoodii xaalad culus baa taalla haddana maca daalika taasi kama mashquulinin alkhaliifatu raashid cumar inuu wiilka dhallinyarada iyo maradiisa dhulka xaaqaysa dhulka taalla inuu baraarujiyo kama mashquulinin wuxuu yidhi wiilka ii soo celiya waa laga daba tegay soo laabaa la yidhi wiilkii waa la soo celiyey markaas wuxuu ku yidhi wiilyahu yaa adeer marada kor u qaado buuri maxaa yeelay maradaadana sidaasaa u dahaaro iyo nadaafad badan rabbigaana sidaasaa u cabsi badan rabbigaa cabsidiisu taasay ku jirtaa maradaadu inay nadiif ahaato iyo wasakhda dhulka ka badbaadana taasay ku jirtaa aaway marka dadkii dhahayay wadaadadan maryaha uun ku mashquulsan yaa muslimiintii arrimo waaweyn baa u yaalla gumaysi baa hayst iyagii baa iskhilaafsan dhibaataa taalla maraa laga hadlayaa iyo meel hoos ha loo dhigiyo kor ha loo qaado ilaa ayba ku tilmaameen wadaadada qaarkood maba aha arrimo waaweyn oo laga hadlo ma ah yaa jamaaca nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi markuu leeyahay war kor u qaad cabdulaahi ow maradaada masale weyn maaha miyaa cumar iyo muslimiinta arrintaasi u taalla markuu leeyahay war marada kor u qaad arrin weyn ma aha miyaa mase diinta islaamka waxaa ku jira waxaan macno lahayn oon lagaba hadlinba abadan masaa'isheeda dhammaanteed qiimay ku fadhiyaan ruuxa muslimkaana waa inuu diintiisa u hoggaansamo waay sidaas daraaddeed irfac izaarak haddaad intaa ku darto inay xaraga kibir iyo kibir qalbigaaga ku jira ay kugu kallifayso dembigu waa ka sii weyn oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ruuxii hoos guntigiisa kibir iyo xaraga kibir iyo isla weynan hoosguntigiisa dhulka ugu jiida ilaahay maalinta qiyaamada ma fiiriyo tabaaraka wa tacaala idan maradaada kor u qaado sarwaalka kor u qaado macawista kor u qaado muslim baa tahay diintaada ka amar qaada nebi maxamed ateec salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa nasiib xumo ah intaasoo xadiid iyo shuruucdaasi masale ay ku soo aroortay in ay muslimiinta in badanoo ka mida ay yidhaahdaan waa dad khaasa calaamadooda iyo dhaqankooda waaye waa niman la yidhaahdo wahaabiyay dhaqan u tahay hadday taasi wahaabiye dhaqankooda tahay wahaabiyaan nahay dhaqan wahaabiye hadday tahay sunnadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la dhaqangeliyo nacam saasaanu nahay in kaana xubu aala muxamadin rafda falyaclam ithaqalayni annii raafidi nacam sunnada nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh cid kastoo muslim ah siyaasi ha ahaado ganacsada ha ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado sunnada nebi maxamed ummadiisao dhan bay u taallaa almusbilu isaara maradaada kor u qaado meelaadan filaynin buu cadaabku ka yimaadaa si lama filaan ana naarta waa lagu galaa si lama filaanana khatar waa lagu galaa nebi maxamedna wuxuu sheegay dunuub ay dadku fududaysanayaan oon la weynayn oon indhahooda ku weynayn iyo miisaankooda iyo qiyaastooda inay keeni karto inay naarta ugu hoobtaan 70 sano waa kelimo aan kula weynayn waa dhaqan aan kula weynayn saas daraaddeed aakhiradaada ha ku khamaareen mara yaroon qiimoba ku fadhiyin inaad kor u qaadaba ayna kugu adkayn maxaad naar iyo khatarteeda ugu gelaysaa ninka labaad ama ruuxa labaad ee nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuusan alla fiirinayn una naxariisanayn una dembi dhaafayn cadaab xanuun badanna uu leeyahay wuxuu nebigu yidhi sal alla alayh wasalam waa ruuxa abaalsheegadka badan wax ma bixiyo ilaa dadku ku abaalsheegtaa ixsaan hadduu sameeyo xoolo hadduu bixiyo gacan hadduu geysto wuxuu sameeyaba dadku ku abaal sheegtaa gallad buu ku sheegtaa kaa ilaahay uma naxariisto bal axaadiista nebiga sal lla lay waslam waxay tilmaamaysaa inuu ka mid yahay dadka naarta loo qoray axaadiista qaarkeedna waxay tilmaamaysaa inuu ka mid yahay dadka jannada loo diiday sababtu maxay tahay adeer markaad dadka ku galladaysanayso waxaasaan idiin galay yaa waxaad u gashay dadka xoolo keliya maaha cilmi baad bartay cilmigaad bartay inaad dadka ku galladaysato maaha xoogaagaad dadka ku anfacday waxbaad ku tartay ma aha inaad ku galladaysato xoolaad siisay ma aha inaad ku galladaysato
khatar inuu ka badbaadaad sabab u noqotay maaha inaad ku galladaysato allah baa korkaaga gallad ku leh ee maaha inaad addoommadiisa aad ku abaal sheegato ma adaa abaal lagugu leeyahay sababtuna waxay tahay xooggan aad wax ku tarayso xoolahan aad bixinayso ihsaankan aad bixinayso cilmigan aad dadka barayso ee aad moodaysa inaad adigu leedahay allah tabaaraka wa tacaala baa ku siiyey asagayna waajib tahay inaad uga mahad celiso ogaatana inuu isagu waafajinta leeyahay sidaas daraaddeed ruuxa wuxuu bixiyaba gallad sheegto oo dadka ugu abaal sheegta asagana wuxuu ka mid yahay saddexdaas aan ilaahay maalinta qiyaamada la hadlaynin fiirinaynin daahirinaynin cadaab xanuun badanna leh waxaa yeelay wax ilaahay dartii aad u bixisay adeer wax lagama raadiyo dadkana laguma dhibo waxa aad baxsatayna sidaan khudbo hore kaga hadalay waxa aad baxsatay ihsaanka iyo wanaagga aad geysatay hadaad abaal sheegad ka dabageyso way burtay waxba kuma yaalaan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha war sadaqada aad baxsateen ha ku burinina abaal sheegad ha ku burinina ma aha dhaqanka ruuxa muuminka waxay ka sii daran tahay markuu laba arimood kulmiyo ruux markuu isku daro inuu bakhayl yahay haddana mannaan yahay axaadiista qaarkoodna saasaa ku aroorto labadaba oo laysku daray waa bakhaylo horta wax kuman ma bixiyo waa gacan adag yahay haddana waxoogaa yar markuu silic ku bixiyo oo rafaad kaga soo baxdo intiibuu haddana daba joogaa maalin heblo soonigiisaa ku taray maaha meel heblo soonigii ku siiyey maaha meel heblo sooni tan kuu galay maaha waa waxoogaagii yaraa ee ka soo baxay wa marka laba sayi'o ma bakhaylnimiya waxaad isku daraya abaal sheegad waa arrin xun waa dhaqan fiican maaha ruuxa muuminkaana dhaqankiisa maaha ninka saddexaad ee nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuusan alla fiirinaynin la hadlaynin daahirinaynin xanuun badanna uu leeyahay waa ninka ganacsada ah suuqu ka ganacsada badeecadiisa iyo alaabta u taala iyo wuxuu ku socodsiiyaa dhaar si dadku uga rumaystaan alaabtuna ugu socoto ayuu dhaaranayaa wallaahi inaan intaas soo siiyey buu leeyahay wallaahi intaasa iigu fadhidaa waa beenaale calashaani muxuu rabaa ruuxan badeecada raba inuu ka rumaysto warkaa oo uu saa kaga iibsado intuu wax walba soo dhaafay buu allihii kownkan abuuray ee qadarinta iyo weynaynta mudnaa magiciisiibuu wuxuu u isticmaalayaa intuu ka been sheego inuu badeecada ku iibsado sidii riwaayaadka qaarkooda ku soo aroortay allah buu wuxuu ka dhigtay badeeco uu iibsado badeeco uu iibsado dhaarta markaad dhaaranayso waa shay weyn sida ilaahay qur-aanka kariimka ku sheegay dhaartu waa shay weyn magac ilaahay baad cuskanaysaa dadka aad u dhaaranaysana waxay kaaga rumaysayeen magaca ilaahay aad cuskanayso sidii ibliis oo kale inaad ilaahay magaciisa wax ku khayaantood khalqiga ku khayaantaay dambi weyn oo weyn baad ilaahay ka gashay tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed badeeco lagu kor dhaarto ruuxa dhaarta badani been buu u badan yahay ha u isticmaalin badeecadaada iyo dadka mucaamalaadka aad la mucaamaloonayso beeca iyo shiraha dhaarta iska ilaali laa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum ha ka dhigina allah tabaaraka wa tacaala mid toogdhisad ah hadaf aad dhaarihiinna uun hadaf uga dhigataan iyo taarged dhaarihiinna uga dhiganina ma aha rabbi tabaaraka wa tacaala magiciisu waa ka wan yahaye wax suuq korkii iyo miis korkii allah magaciisa lagu wadwado ha ka dhigin nacam haddaad ilaahay xusayso sax laakiin inaad badeeco aan qiimo lahayn iyo adduunyo dadka ku sirto ood magaca ilaahay ku khayaantahay maya rabbigaa intaa waa ka wan yahay hadduuse kula fududaaday ood badeeca la iibsanaya ka dhigatay magiciisii waad mudan tahay markaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada naxariistiisa kaa fogeeya cadaabna ku geliyo sidaas daraaddeed iska ilaali arrimo saddexoo khatar ah wey maradaada u dhig qaabkii shareecadu u dhigto hadigii nebigaaga raaca salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahay labiskaaga hagaaji
khalqiga rabbi tabaaraka wa tacaala ixsaanka aad u samaynayso adaa ilaahay kuu sameeyey ixsaanna abaalkiisu waa ixsaane ninna ha ku sheeganin ilaahay agtiisa ka raadso tabaaraka wa tacaala beecaaga iyo shirahaaga iyo suuqaaga khalad ha ka gelin allah tabaaraka wa tacaala magiciisana ha fududaysanin intaa waa ka wenyahay ya bna aadam cish maa shi'ta fainaka mayit وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوفهم يا حي يا قيوم اللهم وفقهم للتمسك بأسباب القوة والتمكين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الأعداء وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد